khasaare kala duwan oo isku jira dhimashii dhaawac ayaa ka dhashay dagaal culus oo galankii dambe maanta tiro dhowr jeer ah gudaha deegaanka Doonlaaye iyo dhulka hawdka ay ku taasan ku dhaxmaray ciidamada sida gaarka u tababaranaya danab oo garab ka helaya daraawiisha deegaanka iyo xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab. Dagaalkan ayaa imaaday kadib markii ciidamada iskarabsanaya ay weerar dhowr jaha iyo duqeymo isbarbar socday ay ku qaadeen dhowr fariisin oo kooxdaas ay ku lahayd deegaanka Doonlaaye iyo dhulka hawdka ah ee ka agdhow, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. wax ka badan 3 saacadood dagaalkaas uu socday kadib ciidamada iskarabsanaya ayaa gudaha u galay ilaa 3 goobood kuwaas oo fariisi weyn ay ku lahaayeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab. Saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in la wareegeen saldhigga dagaalamayaasha al-shabaab ee deegaanka Doonlaaye isla markaasna si weyn u xaqiijiyeen ammaanka deegaanka. waxay sidoo kale ay sheegeen in shabaabka ka baxay deegaankaasi u carreen fariisimo ay ku leeyihiin deegaanka Bacadweyne ee koonfurta gobolka Mudug. saraakiisha ciidamada ammaanka waxay sidoo kale ay sheegeen in dagaalka al-shabaab ay la galeen ay ku gaarsiiyeen khasaare xoog leh isla markaasna in ka badan 3 xubnood dagaalkaasi uga dileen dhankooda khasaaraha soo gaaray dagaalkaasi uu kooban yahay. waxay sidoo kale saraakiisha ciidamada ammaanka iyo kuwa deegaanka ay warbaahinta u xaqiijiyeen in qorshaha dagaalkan uu ahayn la wareegitaanka saldhiggan laakiinse uu yahay sidii guud ahaan dagaalamayaasha al-shabaab looga saari lahaa dhulka hawdka ah kaas oo ku yaal inta u dhaxaysa goobaha maanta lagala wareegay xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo ilaa deegaanka Jowle ee gobolka Mudug isla markaasna ay si weyn ugu diyaarsan yihiin dagaalka dhanka al-shabaab. wixii maanta ka dambeeyna aysan shabaab ku sii jiri doon dhulka hawdka ee ka tirsan koonfurta gobolka Mudug. deegaanka Doonlaaye iyo dhulka hawdka ee maanta laga saaray xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ahayd goob istiraatiiji ah isla markaasna dhowrka sano ee la soo dhaafay fariisimo muhiim ah u ahayd kooxda al-shabaab, waxaana la waritaanka deegaankan uu ka dhigan tahay gul weyn ay gaareen ciidamada isgarabsanaya ee ka tirsan militariga Soomaaliya, waxaana ciidamada u sahli doontaa in mar kale weerar ay ku qaadeen goobaha kale oo fariisimo ay ku leeyihiin xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab.